Assalaamu calaykum. Maanta waxaan dhigan doonaa Unit 1 cutubkeena koobaad oo ciwaan nagu yahay am is a waa saddex ficil caawiya saddexdani oo loo isticmaalo sentence-ka qaabka loo isticmaalo waynu arki doonaa laakiin marka hore waxaan qaadan doonaa gabadhan oo Liisa la yiraahdo oo nafteeda ka sheekeynaysa doonaynaa balayna barno waxayna nafteeda kaga sheekeynayso marka waxay tiri my name is Lisa aniga waxaa la yiraahdaa Lisa I am 22 anigu waxaan ahay 22 jir I am American anigu waxaan ahay gabadh Maraykana I am from Chicago anigu waxaan ka imi Chicago magaalada Maraykanka ku taalla Chicago la yiraahdo I am a student anigu waxaan ahay ardayad my father is a doctor aabahay waa dhakhtar and my mother hooyadayna is a journalist waa saxaafiyad I am not married anigu ma ihi gabadh xaasa ama la qabo my favorite color is blue kalarkan xiiseeya waa bluega my favorite sports ciyaarahana waxaan ka xiiseeyaa my favorite sports ciyaarahan xiiseeyana are football waa kubadda cagta and swimming iyo dabaasha I am interested in art anigu waxaan xiiseeyaa artka ama fanka tablekan baynu doonaynaa inaan barano saddexdii ficil caawiye ee am iyo is iyo a ayaan doonaynaa inaynu sida loo isticmaalayaanu tablekan ku barano iminka I aniga waxa uu keligiis ugu qaadanayaa am buu qaataa okay he iyada she iyada iyo it wixii aan naflayn baa loo isticmaalay saddexdaasna waxay qaataan is bay qaadanayaan haddaad aragto lagu yiraahdo maxay qaadanayaan is baad raacinaysaa leersadaad ku arki doontaa we inaga you idinka ama adiga they iyaga saddexdaasna waxay qaadanayaan are bay qaadanayaan ficil caawiyaha are baad raacinaysaa okay qaybtan kale ee tableka waxaad lagu qoray iyadoo short form ah ama qaab lasoo gaagaabiyey markaad doonaysa inaad iska soo gaabsato imika tusaale ahaan I am baad doonaysa inaad soo gaabsato waxaad qoraysaa I apostrophe m saddexdaa kelmadood baad qoraysaa saddexdaas baad qoraysaa waxay kaaga dhigatahay I am adoo qoray oo kale he is markaad doonaysa inaad soo gaabsato he apostrophe s baad qoraysaa she is markaad doonaysa inaad soo gaabsato she apostrophe s baad qoraysaa it is markaad doonaysa inaad soo gaabsato it apostrophe s baad qoraysaa sidaas la mid ah we are you are iyo they are saddexdaa markaad doonaysa inaad soo gaabsato ama short formkooda qaybtaasaan kugu qoray okay tablekan kale haddaynu eegno waa negativekii ama diidmadii markuu qofku doonayay inuu waxaan doonaynin inuu cabiro ama uu tilmaamo tusaale ahaan I am not Lisa oo kale I am not student anigu arday ma ihi oo kale markaa diidmada aad samaynayso ayaan doonayaa inaad aragto aad ku qaadan doonaa dee ficil caawiyaasheedu baynu not un raacinaynaa un bis not un baynu raacinaynaa ficil caawiyayaashana soo aragnay iminka I am not anigu ma ihi I am not Lisa oo kale Lisa ma ihi not un baynu raacinay waxba kamaynaa bedeleen he iyo she iyo it is bay qaadanayso baa not un baad raacinaysaa we you they are bay qaadan jireen not un baad raacinaysaa markaad diidmada samaynayso okay qaybtan tableka ee kale waa short formkoodii markaad doonaysa inaad soo gaagaabsato he is not markaad doonaysa inaad soo gaabsato he apostrophe s notna waad qoranaysaa waxaad kala soo gaabsan kartaa he is not he dawaad qoraysaa is isn't ama is n apostrophe t saddexdaa kelmadood baad kelmadahaas ayaad soo gaabsan kartaa is not isnotii baad israacinaysaa isnotii baad soo gaabinaysaa ama he is baad soo gaabsan kartaa labadaas siyaabood baa u isticmaali kartaa markaas she is not oo kale waxaad soo gaabsan kartaa she apostrophe s nota waad iska daysan kartaa ama notdii waxaad ku celinaysaa ista oo shida waad deynaysaa labada qaabood baa noocaaba waad isticmaali kartaa conversationkan ama wada sheekaysigan baynu ka eegi doonaa saddexdii ficil caawiye sidii loo isticmaali jiray ama wada sheekaysiga sida lagu isticmaalo haddaynu iska bilaabano I am cold anigu waan dhaxmoonayaa I apostrophe m waxaa loo soo gaabiyey I am oo lasoo gaabiyey weeye can you close the window please daaqada ma xidhi kartaa adoo mahadsan I am 32 years old anigu 22 jir baan ahay my sister is 29 walaashayna waa 29 jir marka my sister waxay ka timi sheedna waxay qaadan jirtay is okay Steve is ill Steve waa bukaa Steve he buu ka yimi he is buu qaadan jiray marka la soo gaabinayo he is he apostrophe s waa la soo gaabin jiray he is in bed isagu sariirtu jiifaa my brother is afraid of dogs walaalkii wuxuu ka cabsadaa ayda
It is 10 o'clock waa 10kii oo buura ah. You are late again. Adigu mar labaad baad habsan tahay. You are waa you are baa loo soo gaabiyey you apostrophe r taas. Anne and I are good friends. Anigii aan saaxiibo wanaagsan isku wanaagsan baan nahay ama saaxiibo wanaagsan baan nahay. Anne and I waa day baa laga keenay dayduna r buu qaadan jirtay. Your key are on the table. Furayaashaadu miiskay saaran yihiin. I am tired anigu waan daalanahay but I am not hungry laakiin ma gaajoonayo. I am not waa diidmo marka qofkan waxaan doonaynin markuu doonayo inuu cabro not buu raacinayaa baynu niri ficil caawiyaha. Tom isn't interested in politics. Tom ma xiiseeyo siyaasadda. He is interested in music. Wuxuu xiiseeyaa musica. Jane isn't a teacher. Jane maaha maclimad. She is a student iyadoo ardayd. Those people aren't English. Dadkan maaha dad Ingiriiska u dhashay. They are Australian. Dad Australiana. It is sunny today. Maanta waa maalin cadceed iyo qorrax baa jirta. But it isn't warm. Laakiin maaha diirsimaad ama kulayl. Okay. That is marka lasoo gaabinayo that apostrophe s baa lasoo gaabinayaa. There is marka lasoo gaabinayo there apostrophe s baa lasoo gaabiyaa. Here is marka lasoo gaabinayo here apostrophe s baa lasoo gaabiyaa. Ninkan ayda ka cararaya wuxuu leeyahay I'm afraid of dogs. Ana waxaan ka baqaa ayda. Ninkan kale xafiiska istaag ninka wuxuu ku leeyahay qofkan here your key waa kuwan furayaashaadii. Isna wuxuu ku yidhi thank you waad mahadsantahay. markaas halkaas ayuu maanta cashirku inagu joogi doonaa insha allah cashirka inagu xiga intaan weynka dambe ka qaadan doono wasalaamu calaykum waraxmatullah.